ورحمة الله وبركاته كسر دواد عالي أكاديمي English Language Course Writing Lesson 7 وعشر كيتو ضباط أو قرال وقرال كوبن قرال كنا ما أنت كساب سنية The United Kingdom وshort paragraph وإنه كجهل دونه وطنك لو يقان United Kingdom أما UK إنه استعمال دونه كلمة أو إنه استعمال دونه مركينه قرأ paragraph كلمة سواء capital language currency island وجزيرة population iyo all history taariikh hore عشر qoraalkina sidan buu ku bilaabmayaa United Kingdom is a country in Europe United Kingdom waxa weeye wadan ku yaala qaaradda Yurub The UK is made up of 4 countries UK waxay laga sameeyay ama ka kooban tahay 4 wadan kuwaasoo kala ah England Scotland Wales and Northern Ireland aynu sii wadno qayb aynu dhamaystirno paragraphka The capital city is London caasimadda United Kingdom waxa weeye London The main language is English The main language is English luqadda ugu weyn ama luqadda dadka dhani ay ku wada hadlaan waxa weeye English The money or the currency is pound The currency is pound lacagta laga isticmaalana waa pound lacagtuna waxa loo yaqaan pound waa lacagta laga isticmaalo wadanka Okay The UK is an island UK waa jasiirad waxaa looga jeedaa halkaasna bad baa ku hareeraysan waa jasiirad weeye It has many famous places waxay leedahay meelo badan oo caan ah oo ay ka mid yihiin like Big Ben and Stonehenge UK waxay leedahay meelo badan oo caan ah It has many famous places waxay leedahay meelo badan oo caan ah like kuwaasoo kala ah Big Ben and Stonehenge wuu sii wadaynaa The population is about 69 million dadka deganina waxay ku dhow yihiin 69 milyan The national food is fish and chips cuntada ummaduna waxaa ka mid ah kalluun iyo chips The national food is fish and chips cuntadooduna waxa weeye ama cuntada ummaddu
waa kalluun iyo chips waan sii wadanaynaa qoraalkii the UK is famous for its old history UK waxay ku caan tahay taariikhda hore taariikh hore waxaana ka mid ah taariikhda big castles waa beldiyo big castles ama qalcado iyo green countryside The UK is famous for its old history UK waxay caan ku tahay taariikh hore oo ay ka mid yihiin big castles and green countryside casharkina intaasuu inoogu kooban yahay adigana waxaa lagaaga baahan yahay inaad waddan doorato aad soo qorto paragraph yaroo kooban adigoo ka hadlaya waddankaas intaynu ku kulmi doona casharka 8aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu